salaaxudiin safar dheer ayuu u soo galay siduu heeriyada gumaysiga uu Qudus uga dulqaadi lahaa. Waxa uu salaanka siyaasadda iyo darajada dawladnimo ka soo fantay nimankii Shiicada ahaa ee Faadimiyiinta, waxaana booskiisa ku xajistay kuulihii uu ka gaaray weeraradii Saliibiyiinta iyo u dhagaan nuglaanshihiisii ninkii la oran jiray Al-Cadiid ee Masar xukumayay, kaasoo markii dambe u magacaabay inuu noqdo taliye sare oo dawladdiisa ka mid ah. Bilowgiisii safarka xoreynta Qudus waxa uu sees uga dhigay inuu asaguba ka xoroobo nidaamka Shiicada, waxa uuna bilaabay inuu kala daadiyo Faadimiyiinta. Dhimashadii Al-Cadiid 171 waxa uu Salaaxudiin Qaahire iyo Masar oo dhan ku xiray khaliifada Cabbaasiyiinta ee fadhigoodu ahaa magaalada Baghdad. Sanadihii xigay waxa uu Salaaxudiin hogaamiyay duulaan ka dhigan Saliibiyiintii Falastiin qabsatay iyo Qudus. Ka horse waxa uu isu xil saaray inuu Yemen gacanta ku dhigo kana hortaga fallaagada Faadimiyiinta ee Masar wax kaga harsanaayeen. Waxa uuna la wareegay Suuriya isaga oo si xarraga leh ku soo galay magaalada Dimashq. Bartamihii 175 waxa uu qabsaday Homs, waxa uuna isugu yeeray suldaanka Masar iyo Shaam, waxaana xilka ku aqbalay khaliifkii Cabbaasiyiinta Al-Musta'idi. Waxa uu ka badbaaday laba isku daydil. Sanadkii 182 waxa uu dhammaystiray qabsashadii Suuriya kadib markii uu la wareegay Xalab, laakiin waxa uu ku guuldareystay inuu gacanta ku dhigo Mawsulta Ciraaq oo sanadahaasi hujuumay xoreynta dhulka barakaysan. Qudus waa magaalo muqadas u ah dadka rumaysan diinaha Ibraahimiyada, Islaamka, Yuhuudda iyo Masiixiga. Saliibiyiinta ayaa qabsaday magaaladan sanadii 1099. Salaaxudiinna waxa uu wacad ku maray inuu dhulkaasi gacanta muslimka ku soo celiyo. Waxa uu waqti dheer ku bixiyay dhisidda ciidan xoog badan iyo qaabaynta isbahaysiyo siyaasadeed oo xoojiyay awoodiisii. 4 Julaay 187 ciidamadii Salaaxudiin ayaa ku guuleystay inay jebiyaan xoogagii Saliibiyiinta. Dagaal ka dhacay Hittin, ciidamadu waxay isku arkeen meel u dhow badda Galiile. Ciidamada Salaaxudiin ayaa ku guuleystay inay xoreeyaan lana wareegaan talada meesha Hittin la yiraahdo, halka ciidamadii kale ee Saliibiyiinta badankooda ay laayeen ama ay ku qasbeen inay baxsadaan. Dhisidda ciidamada Saliibiyiinta waxay ka timid boqorkii Kiristaanka iyo hogaamiyeyaashii kaniisadaha sida Bob Urban oo ku baaqay in la sameeyo ciidan Qudus iyo dhulka barakaysan lagu qabsado. Ciidamadan ayaa ka koobnaa 100,000 oo dagaalyahano ah oo kala artilleries iyo infantries iyo taageerayaal kale. Waxay ahaayeen kooxo badan oo ka soo kala jeeda Yurub, waxaana loogu wanqalay Crusaders kadib markii ay kor u qaadeen saliibka. Guushii Salaaxudiin kadib Hittin waxa uu u dhaqaaqay Qudus, waxa uuna si nabada u qabsaday magaalada barakaysan ee Qudus bishii Oktoobar 187.